Forum anagu waa 142 ajandaha waa dhamaystirka iyo codeynta wax ka beddelka sharciga axzaabta siyaasadeed sida hadda sharciga lagu sheegay waxaa la yiri xubinnimadii uu dhumi karaa xisbiga hadduu xisbigii ka baxo xisbi kale ma geli karo ilaa 3 sano ay ka soo wareegto wax dhibo aniga ku qaba lama arko laakiin waxa laga hadlayo oo aniga aan tusaale ahaan u soo qaatay waxay tahay faqrada 8aad qofkii waxa dhici karta xisbigii soo galay sanadkii koobaad uu joogaa inuu is yiraahdo 3 sano ma sugi kartid xisbi kale inaad gashay wixii marka laga xaaraantinimeeyay ayuu aadaya oo faqrada 8aad ku qoran xisbi kale uu ololeynaa qolo kale uu ku mowqif noqonaa kadibna waxa la yiri xubinimadaadi waa dhume marka sanadkii koobaad ama bilihii koobaad ee sanadkii koobaad madaxweyneedkiisa ayuu wuxuu la yimid waxyaabihii sharcigu xarimay waxyaabo kamid ah xubinnimadii uu waay qofkaas marka ma u banaanta xisbi kale inuu aado sharcigu ma sheegin waxa dhici karta marka dhowdo qofku inuu yareysto oo uu is yiraahdo 3 sano inta sugi lahayd waxyaabaha laga mamnuuc gal xubinnimadii xisbiga sidaas kuwa kadibna wax sharciga ku celinaya lama arkay xisbi kala gal meeshaana marka waxaan rabaa sharciga meeshaana marka waxaan rabaa in la tilmaamo oo laba mid la yiraahdo xisbi siyaasadeed ma geli karo ilaa sanadka ugu dambeeya ma ahan ama la yiraahdo qofka hadii xubinnimadii oo weeye xorriyadu uu leeyahay inuu xisbi siyaasadeed oo kala galo meeshaana marka waxay u baahan tahay in la adkeeyo si sharcigu u cadaado gudoomiye sidaas aan ula jeedaa xisbi walba dastuur uu sameystaa jiro waa dastuurna waa la dhigi karaa xeer hoosaad oo wax kale laakiin waa dastuur constitution uu leeyahay xisbiga marka iyo de baylow kale iyo waxyaabo uu isku maamulo xeer hoosaadida mar walbana dastuurka oo xisbiga uu sameysanayo waxaa la waafajin doonaa sharciga doorashooyinka axzaabta siyaasadeed wax badan waxaan filaa baarlamaanka waxaa dhex fadhiya dad sharci yaqaano ah oo lagala tashaday sharcigan axzaabta siyaasadeed oo siiqooyin badanna hagaajiyey marka wax badan kama soo noqon doonaan marka siiqadan hadda guddigana way qorteen waxaan rabaa cabdi cali waxaa laga yaabaa qodobadan in lagu dhisay in laga baqaayo keliya inuu qofku xildhibaanku mudaxileedkii uu xisbigiisa ka guuro asagoo danay gooni ah raacaya xisbi kala aado laakiin hadda mahad tusaale fiican uu keenay deegaan doorashadiisa oo qodob dastuuri ah haddii mashaariic deegaan doorashadiisa nin kaloo la deegaan oo xisbi kale uu soo propose gareeyo inuu taageero waa ku qasban yahay waa qodob dastuuri ah marka in xisbigiisii ay yiraahdaan codkii baa naga siisay xisbi kale banishment ma noqon kartaa hadday isqabtaan marka meesha waxaa iska hor imaanaya sida hadda sharciga noogu qoran xuquuqda aan rabno inaan siino xisbiga iyo xuquuqda uu leeyahay qofka xildhibaanka ah isla markaana deegaankiisa soo doortay cod ka siiyey anigu maalin horena halkan waa ka hadlay nidaamka aan qaadanay horeeya guuleysta xisbiga ma lahan codka qofka iskale xisbiga codkana waxaa soo siiyey shacabka qodob dastuuri ah waxaa waaye dowladnimadu shacabkay ka bilaabataa ku dhammaataa xornimada iyo sovereignty dalka laga hadlaayana shacabka codkiisa wey qofka ay siiyaan waa xor ma ahan qofna ma ahan inuu iyo qolo uu qabaan u noqdo qodob dastuuri ah waaye xornimada la sheegayo ee dal uu leeyahayna codkaa shacabku ay siinayaan ama xisbiga ama qofka wey xisbina ma siinayaan hadda nidaamka aan qaadanay waxay siinayaan waa xildhibaano wey xildhibaanadaas mabdi'iyan qaatay inay xisbi ka mid noqdaan ayagana xisbiga u keenaya awoodda ee baarlamaankan oo ah tirada xildhibaanada ay keenayaan marka anigu waa xoojinaya arrinta mahad inaan siiqadaas qodobkii xalay la diidanaa in lagu daro anigu waxaan qabaa in sidiisa loogu daro zakariya hadduu joogana siiqo fiican uu u dhigay iswaafajinaysaa inaan laga tegin diiwaangelinta xisbiga oo hadda ka hadlay aniga waxaan dhihi lahaa in laga dhigo 50,000 meesha 30,000 oo xisbiga iska diiwaangelinaya hadda ma aha qof wuxuu waa xisbi diiwaangelin xisbi waaye diiwaangelinta xisbigana waxaan dhihi lahaa 50,000 xisbi diiwaangelintiisa haddii ay 50,000 looga qarqarayo in asxaab la iska soo wada sheegto oo qof la arko macnaha xisbi ah keligay ka taagan haddii uusan shuruudaha noocaan buuxin karin iyo waxa u dhigmo meel ha iska fariisto intaa waxaan ii dheer qodobka
madax bannaanida waagii hore waa ogtihiin markii aan aadaynay doorashada waxaa la saxiixay form oo shahaado shuruud ahayd oo ah in xildhibaanada oo dhan ay noqonayaan xisbiyo 2 sano gudahood kulli aan waa saxiix waxaan filayaa inay kulli sidaas ahayd waayo 2 sano ka bacdi xildhibaanku waa inuu xisbi ahaadaabaa qorneyd maadaama ay sharci jirin lama dabaqin shuruudahaas haddana inta waxaa ku qoran meeliyahan hadda ka hadlaynay inuu si madax bannaan ugu tirsanaanaya haddii sanadka ama 3 sano ka bacdi sanadka ugu dambeeyo horta madax bannaanidu ma caddahay oo in xildhibaanada qaarkood ay madax bannaanaan karaan haddaysan jirin in lagu daro siiqo ah xildhibaanka hadduu doonana inuusan xisbi ka mid noqon karin intii waa madax bannaanaana keligiis la dhihi lahaa inay madax bannaanida horta ay caddahay waayo adduunkaba waa ka jirtaa in la madax bannaanaado marka taasna in meesha lagu caddeeyo haddii allaha awoodda la ogolaado qodobka 6 faqradda 2 xarafka a ha lagu kordhiyo si waafaqsan qodobka 16aad faqraddiisa 4aad ee sharciga doorashooyinka waxaan rabaa inaan ka hadlo qodobka 16aad qodobka 6aad sorry farqadiisa 3aad wuxuu leeyahay waa inuu bixiyaa khidmadda 30,000 waa waxaan ka hadlahay muhiimadda waxaan ognahay xisbi markii la samaysanaayo khidmadda 30,000 ah waa inay marka horeeto axsaabta isku imaanayso axsaab yar ma noqonayso axsaab badan ay ku jiraan siyaasiyiin hore dad bulshada qiimo ku leh iyo dad nooc walba isku imaanaya waxaan aaminsanahay 30,000 haddaysan awoodin xisbigooda xisbiyada kale oo marka dambe doorashooyin kale imaanaya inay ka mid noqdaan waa midda koowaad midda labaad adduun weyna waxaan saas u leenahay annaga feer woolaan nahay macnaha dhaqaalaheenna liita waxaan helay coronavirus dekadihii waa naga xiran yihiin meel walba waa xiran yihiin dhaqaalihii taas darteed waxaan aaminsanahay 30,000 in laga dhigo laakiin meelaha kaleeta adduun weynaha markii la soo qaadanayo marnaba xisbi laguma xiro lacag laguma xiro waa inay ahaataa xisbiga inuu is soo dhisi karaa uu dadka qaybgeli karaa laakiin waxaan leeyahay oo aan xoojinayaa in laga badiyo 30,000 si dhaqaalaheenna uu u soo kabco hadhow lagu xisaabtamo lagana dhigo qadiija aan u xoojinayo 50,000 zahra cumar okay hal mid oo kale gudoomiye inaan saxaan rabaa taas waa ka baxaya midda labaad oo aan sheegay meel kasta waxa ku taalo haddii la aadayo maxkamadda awood u leh maxay noqon kartaa maxkamadda suuri ma qabno maxkamadda awood u leh waxay noqon kartaa maxkamadda sare ee dastuuriga marka la leeyahayna inta laga gaarayo maxkamad dastuuri ah waxaa dacwada qaadaya maxkamadda sare oo ay caawinayaan garsoorayaal saas darteed maxkamadda sare ayaa waxay isu bedelaysaa maxkamadda dastuuriga waxaan soo jeedinayaa in lagu qoro maxkamadda sare ee dastuuriga waana mahadsantihiin waxay la tahay dood aynu hadda ku jirno laga doodahayo xeerkan in hor yaalo oo gebagabada la soo maraayo inaysan waafaqsaneen xeerkayna qodobka 98aad ee xeer hoosaadku wuxuu sheegayaa marka ay soo afjaranto ka doodidda hindis sharciyeed maray akhrintii labaad soo maray in laga doodo ma bannaano ilaa waxaa wax looga bedeli karaa qaab mooshin ayaa wax looga bedeli karaa marka ciddii rabto hindis sharciyeedkii soo dhammaaday akhrintiisa inay wax ka beddesho qaab mooshin ha ku keento qaabka aynu hadda ugu doodayno xeerka ma waafaqsano qof walbana ha akhriyo qodobka 89aad waa mahadsantiin horta waxaan noo qoran Soomaali ayaan wax noogu qoran marka si aan luqadanadu u xoojino meesha ay soo jeediyeen ABC ha loo bedelo oo Roomaaniga ay dhaheen ina horta luqadanadu lagu habeeyo ayaan jeclaan lahaa oo baataaja laga dhigo saas loo qoro oo taas waan dhihi lahaa tan labaad
qodobka 6 lacagta 30 kun ah waa la qabaa inay 30 kun ay ka badato ilaa 50 la sheegay laga dhigo sababtoo ah shakhsi ma aha waa urur xisbi oo qaran dhan matalahayo marka in la adkeeyo qofka ay runta ka tahay iyo midka caadiga ah warqadaha iska qortay ayaa lagu kala saaraa waxyaalahaas qodobka tan labaad guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo lacagta khasnadiisa lagu shubahay waa in laga saaro waxaa lagu khasbay 9 gobol inay iska diiwaan geliyaan iyadoo aan la sheegin muddo aan loo qabanin ma 5 sano gudahoodba ma 4 sano gudahoodba ma 2 sano gudahoodba ma 1 sano gudahoodba yacni xisbiga xabaru iska fadhinaya ana wax hirgeli karo oo maartay xisbiga lagu tilmaamaya gobolladii ma jiro wax socon kara ma waxaan rabaa intii xildhibaanada hadda ay hadlaayeen ayaan xoogaa ka nood garaystay xildhibaanadu qaar waxay ka cabanayaan qodobka muxuu ahay xilka lagu waayn karo muxuu ahay qodobka 12aad ee sharcigan annaga waxaan dhahnay xildhibaanku ma waayn karo xasanadiis markee qodobka 59 ayaan soo qaadanay mar haddaan qodobka soo qaadanay shuruudaha ku qoran unbaa xilka lagu waayn karaa taasisid marka inaan la waayn karin oo qofka xildhibaanka ah haddii uu xisbi ka tirsanaayo oo xisbiga xildhibaan ku noqdo waxaa ka weyn deegaan doorashada qodobka 61 ee dastuurka ee mahad salaada uu soo xignay xildhibaan mahad soo xignay kaasaan aan aad u ayidnay waxaa kale oo jira xisbiga iyo qofkii xildhibaanka u ahaa hadday iskhilaafaan qodobka waxaa jira qodobka 32 ee sharcigii muxuu ahaa ee horan ansixinay ayaa tilmaan cad bixinaya inay dialogue sameeyaan ay wada hadlaan oo khilaafkooda xallisan karaan marka xildhibaanka waxaan u dhahnay muxuu ahaa muddo kuma biiri kara xisbi ilaa sanadka ugu dambeys waxa suurtagal ah xisbigiisa asaga inay isu noqdaan oo xanaaqi meesha uu ka dhamaado tan aan tixgelinaynin taas waa lacagta 30 kuna xildhibaano dad badan aa soo jeediyay 100 kun oo soo jeediyay tilmaamo badan xildhibaan badan taladooda aan helnay marka meesha ugu dhexdhexaadka ee aan dhihi karno waa qaadan kartiin ayaa waxa noqotay 30 kun marka kaasaan qaadanay ugu dambeyn xildhibaan Saleebaan meesha uu leeyahay xisbiga taageeri muxuu ahay dadkiisii dambe ma gelin xisbiga sax ma aha beer soo daa xisbiga waa dad xisbiga ruuxiisa dad ah shakhsigii xisbigaas madaxda u ahaa xadgudub sameeyey xisbigiisa la laalay in isla markiiba xisbi kale uu ku boodo xogaa waxaan u aragnay in ay tahay qayr sharci in ay tahay aan u aragnay marka kana liiga xire ku kalan galaa maxaan ka galaabo maxaa liiga joojinaya marka annagu waa idiin sheegay ilaahay agtiisa unbay wax ka dhammaadaan sharcigan muddo gaaban iyo dadaal badan oo aan habeenkii 4 saac ilaa 12 saac isku gaaraynay ayaan soo gaarsiinay waxaan idinka codsanayaa guddiga magaciisa aan ku hadlaayay inaad sharciga aad ansixisiin aad mahadsan oo akhrintii labaad halkan aan ka sheegay oo ahayd wuxuu u qoran yahay sidan xisbiga la laalay diiwaangelintiisa sida ku cad faqrada 2 iyo 3 ee qodobkan wuxuu luminayaa xuquuqda lagu cadeeyay qodobka 14aad ee sharcigan intaa markii la yidhiba waxaa lagu daray madaxdiisuna kama bixi karaan xisbigaas iskumana sharixi karaan xisbi kale arrintaas akhrintii labaad baa halkan ka sheegnay xadgudub lagu xadgudbayo qofka muwaadinka weeye xisbiga haddii la laalay oo sharcigii lagala noqday xisbigu waa personal legal personality buu leeyahay shakhsi qaanuun buu leeyahay guud ahaan buu u galay khalad waa lagala noqday ashkhaastii individualka ahayd ee ku jirta xisbiga ma aha inay dembiye galeen khaas ahoo aysan meel loo dhaqaaqi karin marka qofkaas hadduusan si gaara dembi ugu jirin oo xisbigiisi khalad galay waa qof xor ah xisbigu doonuu ku biiri karaa waana isharixi karaa taas waa midda qodobkan 19aad oo dhanna waxaad moodaa inuu awood ka baxsan siinayo sida sharciga ah uu siinayo guddiga diiwaangelinta oo uu la leeyahay wuxuu liiska diiwaangelinta ka saarayaa xisbiyada siyaasadda
haddiiba adigu aad xukun ridaysid ood ka saaraysid waxaa weeye suurtagal maaha haddii guddigu uu bixiyey si sharciya uu ku bixiyey shahaadada oo xisbiga uu siiyey haddii khalad soo noqdo waa inuu maxkamadda ka dacweeyaa maxkamaddaas ayaa dembiga baaraysa marka xisbigu dembigu ku caddaado oo ay xukunto baa guddigu kala noqon karaa sharciga marka halkan tuuteed bay ku ansixinayaan iyo waxaana ma noqon karto wax ku filan qodobka 19aad oo dhan waxaan qabaa guddigu wuxuu dacwadda u jeedinayaa oo uu ka dacweynayaa maxkamaddaana ka gaaraysa markaa ka bacdi baana lagala noqon karaa maaragtay sharciga marka qodobka 19aad taas loogu noqon sharcigan axsaabta siyaasadeed dhammaystirkiisa maanta halkan inaan u codayno waxaan qabaa inay taariikh weyn u tahay ummadda Soomaaliyeed oo loo gudbi doono xisbi siyaasadeed horaan u sheegnay waxaan ku niri xisbi ama axsaab siyaasadeed ee waddanka uu yeesho waa bridge-ka ama buundada ama gaariga noo gudbin lahaa dowladnimo ku dhisan qabiil ka gudbin lahaa Soomaaliya u gudbin lahaa dowladnimo ku dhisan axsaab siyaasadeed qofka Soomaaliga inuu ku soo tartamo dhowr qodob way jiraan wixii sharci ku saabsan xildhibaanada way hadleen waxaan filayaa in guddiga arrimaha gudaha toosintii wixii way samaysteen waa ka soo doodnay sharcigan waxaana waxa berrito marka loo baahdo sharciga mar labaad waa la soo celin karaa haddii ay wax qaldamaan waa wax bashar uu sameeyey munazzal ma aha oo wax la soo dejiyey ma aha subxaan allah waa wax bashar sameeyey berrito cilladaa ku imaan karta maalinta xigtay ku imaan kartaa ee baarlamankan ama baarlamanka kaloo xiga ayaa wax ka bedeli kara sii hagaajin kara marka waxaan rabnaa maanta in loo codeeyo waxaan u codaynaynaa diyaargarooba wax ka beddelka ay soo jeediyeen guddiga iyo toosinta xildhibaanada inta ogol u codaynaysa gacanta taaga hala dejiyo inta ka aamustay wax ka beddelka sharciga xisbiyada siyaasadda ama wax ka beddelka sharciga xisbiyada siyaasadda waxaa ka aamusay 2 waxaa diiday 3 waxaa ogol u codeeyay 137 sidaas ayuu ansax ku yeeshay